ciidamada iskaashanaya ee howlgalka uga jira deegaanada koonfureed ee magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta gacanta ku dhigay deegaanka Labudulle oo qiyaastii 10 kiiloomitir koonfur kaga beegan deegaanka Sinadhaqo oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaayeen ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur, Senator Yuusuf Geelo Ugaas Dhegey iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug ayaa dhankooda jiida kula sugan ciidamada howlgalka ku jira kuwaas oo ku wajahan deegaanada iyo degmooyinka gacanta ugu jira ururka Al-Shabaab. Labadii habeen ee la soo dhaafay mas'uuliyiintan ayaa jiida kula hoyanayay ciidamada kala duwan ee naftooda u horay qabashada deegaanada aan xorta ahayn ee saldhigyada u ah ururka Al-Shabaab oo inta badan toddobaadyadii la soo dhaafay lagala wareegay deegaano muhiim ah qaybo ka mid ah gobolada dalka. maanta ayay sidoo kale ciidamada u suurto gashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo gacanta ugu jira Al-Shabaab, waxaana ciidanka qalabka sida ay halkaa ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi ay la wareegeen. sidoo kale jiida koonfureed ay ka socoto xoreynta deegaanada qadiimiga ah waxaa qayb ka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo kan Galmudug ee ka soo jeeda degmooyinka Ceelbuur, Ceelgaras iyo deegaano hoos yimaada, waxaana hogaaminaya Senator Yuusuf Geelo Ugaas Dhegey oo maalmihii la soo dhaafay u yimid ka qaybgalka gulufka dagaal ee ku wajahan koonfurta deegaanada Galmudug. Cabdiraxmaan Fargaa, warbaahinta Goobjoog, deegaanka Labudulle.